magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Maxamedan waxaan ku noolahay magaalada Doobley waxaan dhaqaaleeyaa ugaadha loo yaqaan gorayada time dheer iyo jundi baan ku bixiyay marka sidaa darteed xilligan abaaraha ay arkayso bahlada ilaa 2 sano ku dhowbaan hayaa hadii wada ogtahay wacdigan hadda lagu jiro ilmihii iyo dhalaankii baaba bariis la gaarsiin lahayd nin uga dhaqaaleeyay waad garanaysaa xaaladda oo la marayo marka bishi qariibun 10 loor meelahaas ay cunayaan hadii loo helo hadii kale waa lagu saydsaydayaa marka waad aragtay hadda xoolihii baa dhamaanaya adhigii lo'dii baqtigeeda waad aragtay marka tan ilaahay sababtii bay ku noqotay maartay gacan ku hayntaydaas bay ku badbaadeen laakiin ilaahay baa badbaadiyay laakiin anuguna gacan weyn baan ka geystay iyo wax bahashana waa xoolihii dalka marka sidaa darteed waa xoolihii dalka marka dalka iyo dadkaan u hayaa inaan xanaaneeyaan rabaa maadaama oo ugaadheeni xulaada iyo balaayi waxay u kala carartay in ugaadhi saasoo kale aan u xanaaneynaan rabnaa dadkuna inay ugu daydaan baan rabaa marka sidaa darteed baan u dhaqaaleynayaa xoolahan kada waa xoolihii dadka dadweynaha iskale mustaqbalka wayna anfacaysaa waa ugaadheeni oo kala firidhay marka sidaasaan rabaa ujeedka u weyn u dhaliyay waxa weeye nin weyn oo waa aragaanahay wa khayraadkii wadanka weeye marka waxaan ka fikirayaa mustaqbalka inuu khayraadkii dalka iyo inay noqoto ujeedka u weyn waa sida mustaqbalkana laga faa'iideysto sidaas ujeedka ugu weyn oo dhaqaaleynaya baasha waa sida anu ciyaalkayga hadda waxaan ku yiraahdaa abu kolkay maarta aan meelaha ama ay ga dhumaan hadiya jar way ga dhumaan ilmahaygan iyo aniga ma aanan u kala harin ilmaha waa baasha inta la iska sii daayo oo horta iskama taaqo ciyaalka gaban iyo ciyaal waxaasa maalintii oo dhan la joogo subaxdii baa la dareerinayaa horta subaxdii baaf weyn waxaan u dareeyaa moordi aan u dareeyaa ama bariis baan u dhigayaa markay cunaan kadib 2 saac baan sii deynayaa meelaha soo joogayaan 7 saac baa la soo xaray biyo la siinhayaa marka niyo baashan aad baan u jecelahay ruuxii wax garad oo kale dhan ee maartay dalka iyo wixii khayraadkiisa garanaya ee way aragna wax weyn bay uga dhigan tahay marka sidaa darteed baashantada cid iga gacan qabatayna ma jirto marka baashan in la ila xanaaneeyo oo khayraadka dalka iyo dadka saal ila fahmaan rabaa mustaqbalka waxa ay qorshaysan kuwa kale oo fara badan oo ugaadhi sida goodirka sida garanuugta ugaadhi biciidka waxa soo dhinanka soo hadda baashan hadda 6 bay ahayd mid baa iga dhimatay marka hadda waad garanaysaa xayawaan yar yar oo la korinayo oo maartay goroyo ugaadha la korinayo waxyaalo badan ama shaashaha u dhibata ama nooc kale oo dhan xabad baa iga dhimatay marka waxa iga qorshaysan wax kale oo fara badan si uu dalka iyo dadku uga faa'iideysto inaan ku soo kordhiyaa iyo qorshaysan iyo dadka wax garadka ee way arga waxay u arkaan wax wanaagsan oo soo kordhiya laakiin dadka iska reemiyigi iyo wax magaratad iyo haweenka waxan kale maxaad ku falaysaa laakiin anagu waan garanayaa macnaha ay ku fadhida iyo wanaaga iyo khayraadka iyo ugaadhu ay ku fadhidaan garanayaa marka dadka intooda badan waxay leeyihiin wax fiican baad qabatay sidaa ku soo deeyda xoolo kale wax aan bannayn baan in yaro areen leeyahay inta yaro areen leeyahay waxa yaro sacaan la way iska dhamaadeen marka dadku baan ku mintaday oo isir dhaqaale